السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري كسو دوادا عاتي ميديا يا عين تشوف فضلا هدي أنا لجوكتنا سيشير قري هدي كلنا ولا ليال نقصو بيرا إن وحي نو جوكتي كليب كان وكليب كيني لبات إن مانتا أو بيشو إيتا سيديد بيشو جنايو لو تكون إيو لبي لباتك مع نسبتيها إن قرنما قلبا ومارتا عصر ليغا وحرنا إيضا قضب كينا لبات وحان كليب كينا لبات وحان كسو قادم دونا on biyaraaci suga dhigi doonaa hadduu alla kuu roon yahay shirkii ka wada socday waxaan ognahay shirka inuu maalinta habeenkii khamiista lagu kala kacay kadib markii muran xoogan uu ka dhashay qodobkii maaragtaa uu rooble uu soo dhigay ee ku saabsanaa amniga qaranka aniga luqunta hal la ii suro raggii meesha fadhiyey waxay u sheegeen waxay yidhaahdeen howlihii lagu dirsaday ayaad ka soo bixi weysay mar haddii howlihii lagu soo dirsadaad ku fashilantana amniga qaranka kuguma dari karno maaragtaa howlaha halkan aan u nimid ee doorashooyinka aan ka wada hadalno meeshan waxaa la yidhi ninka la yidhahdo madaxweynaha koonfur galbeed laftagareen cabdicasiis laftagareen wuxuu yidhi halkan waxaan u nimid doorashooyin aan ka hadalno amniga iyo doorashooyinka amnigoodana waa hora lagugu wareejiyey marka waxaan ka wada hadlaynahay oo kale ay halkan yaallaahi ma jiraan marka halka ay joogto shirku wuxuu ku sigtay habeenkii khamiista ahayd in lagu kala tago uu burburo oo aan mar dambe aan isugu soo laabano halka fashil ka yimaado rooble oo maaragta hadduu alla kuu roon yahay madaxa ciidda ka ceshanaya ayaa baryootan galay beesha caalamka baryootan gashay maaragta hadduu alla kuu roon dadkii waxgaradkii wixii ku hareeraysnaa waxqabadka lahaa oo qaban karay ragga ayaa maaragta gacanta qabtay oo yidhi fariista waa tii habeenkaas lagu kala tegay jimcihii waa tii la kala nastay xalay ayaa la isku soo laabtay oo fadhigii dib buu xal u furmay halkaa markay joogta xalay waxaa la isku soo hadal qaada marka maxaan beri ka wada hadal karnaa oo sabtiyahu maanta ayaa xalay isugu yimid xilli maaragtaa fiidkiiya waxaa la isku afgartay beri in maaragtaa qodobada amniga in maaragtaa meesha inta laga tago doorashada maadaama loo yimid doorashada laga wada hadlo hadduu alla ku roon yahay sidaas si la mid ah maaragta hadduu alla ku roon yahay subaxii waagu markuu begin la isku yimaado haddaba saakay barqinka ayaa la isku yimid waxaana la yidhi hadduu alla ku roon yahay maxaan maaragtaa qodobadii miiska markuu soo saaray amnigii iyo doorasho maaragta waxyaalihii amniga qaranka ahaa rooble xaggaasu iska dhigay maaragtaa waxyaale waxaa jiray sidaas si lamid a waxaa jiray qodob ah in amisom lagu wareejiyo madaxtooyada guud ahaan amnigeeda boqolkiiba boqol gacanta loo geliyay maadaama haddeertaan maaragtaa wax yar qayb yaroo boqolkiiba 10 ama 20 ay gacanta ku hayso halkaa markii la joogo waxa uu maaragtaa uu ninka la yidhahdo rooble udigii dam leeyahay wax la yidhaahdo hadduu alla ku roon yahay article 7 waxa loo yaqaano ah in soomaaliya la maamulo guud ahaanba hadda waxaan ognahay boqolkiiba in maaragtaa in yar in soomaaliya haddeertaan la maamulo hase ahaatee maaragtaa qodobkaas maaragtaa 7ka lagu sheegay jabtar 7 qodobka la yidhaahdo ama cutubka jabtar 7 wuxuu dhigayaa in soomaaliya dhan la maamulo oo madaxweynaha hadba limin loo jiheeyo tubta maaragtaa sida loo hadba sidee rabaan beesha caalamka ama maaragtaa ninka qaramada halkan u jooga inuu hadba uu soo jeego road map uu keeno uu hadba soomaaliya lagu jihinayo waxaan ogtihiin intaasoo road map in maaragtaa soomaaliya uu soo maray kii carta ka soo bilow kii waxaad ka soo bilowda haddii addis ababa lagu qabtay 29kii carta soo soco kii masarka ka siiyay ka horreeyay cartadii la yimaado imbigati nairobi waxaasoo dhan wixii lagu soo wadaba waxay hadda joogtaa marka inuu rooble uu dalbado hadduu alla ku roon jabtar 7 waxa loo yaqaano sababtoo ah gadaal waxaa ka taagan shisheeyahoo dhan ayaan maaragtaa u gacan haatinaya sababtoo ah nimanka la yidhaahdo amisom ama midowga africa ilaalintooda waxaa hadda loo kordhiyey muddo 3 bilooda bisha maarsana waa kala guur hadda waxaa laga shaqaynaya sidai u guuri lahaayeen dalka uga guuri lahaayeen ee qayb looga wareejin lahaa oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo ugu horeeyo ciidanka maaragta militariga ay la wareegi lahaayeen waajibaadka qarankooda waxyaalaha si ay amisom halkan uga sii qaraabato ama ay awood ugu sii yeeshaan nimanka la yidhaahdo beesha caalamka ee awood dheeraada ama awooddooda hore ee la soo laabtaan ayaa waxa uu maaragtaa uu rooble uu u socdaa in jabtar 7 dib loogu laabto macnaha waxyaalo badan uu fulinayaa rooble si kaligiis maaha inuu qaraabanayo wuxuu qaraabanayaa midowga africa qayb ka mid a qaraab ayaa ka haysta sababtoo ah meeshan midowga africa ama ciidamada ka jooga sida uganda iyo kenya oo kale ama ethiopia meeshan waxay ku qabaan
dacmi fiican iyo qadab fiican ayay halkan ku haystaan, ayaguna lacago fiican ku haystaan, tababaray ku haystaan, qalabeyn fiican bay ku haystaan, waxaasoo dhan ayay ku haystay maarata faa'iidada ayay soo ku qaba aysan doonayn inay dalka ay ka tagaan ay halkan joogaan. waana sababta uu chapter 7 uu maaragta uu wato ninka la yiraahdo roble maaragta taasuna waa suurtagali weysay haddeertaan ilaahay mahadii waxa lagu guuleystay ninkii roble la yiraahdo inuu maaragta amniga qodobkii amniga halkaas ka dhigo uu reality-ga iyo maaragta dhulka taalla oo dhab ahaanshaha u soo laabto oo haddeertaan dee maaragta nin isagoo soo jeedo riyoonayuu ahay uu haddeertaan isagoo inuu soo jeedo uu garwaaqsaday uu yiri waxaan socon maayaan walaalayaal maaragta shirkana ha fashilin waxbaanu kala saxiixanaynaa. wakaasa doorashadii haddeertaan waxaa la taagan yahay intaas 45 cisho ha lagu soo gabagabeeyo maye 60 cisho 2 bilood ha lagu soo gabagabeeyo maye 120 maalmood ha laga dhigo oo 4 bilood ha lagu soo gabagabeeyo ilaa madaxweynaha doorashadiisa. hadda waxay ku soo laabatay wax si loo dadajin lahaa u doorashada wixii oo dhan maaragta Roble ilaa iyo shalay uu u digi dam lahaa halka ayay maxay ku noqdeen hal bacaad lagu lisay. maaragta nimankii kale xataa raggii kale uu soo kicinay dhan waa socon weysay way arkeen beesha caalamka kuwii kale maaragta haduu alla ku roon yahay way soo hadleen waxay yiraahdeen waxaan socon maayeen ka wareeji waxyaalo badan oo kadib haddeertaan waxa maaragta la rajeynaya in qodobo ay ka soo baxaan hadii alla idmo oo maaragta in qodobo soo bixin waa bala tilmaamay la sheegayaaba asaata inii soo gudbin doona qodobada ka soo baxa hadii alla idmo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.